12 qof oo 11 kamid ah rag ay yihiin qofka kalena uu yahay dumar ayaa laga soo celiyay magaalooyinka dalka Liibiya oo ay ka jiraan dagaalo sokeeye laakiin dhalinyaradan ayaa doonayay inay u tahriibaan wadamada Yurub dadka la soo celiyay ayaa la soo kulmay dhibaatooyin culus sida jirdil iyo in laga qaado lacag madax furasho dhalinyarada dalkooda dib loo keenay ayaan weydiinay waxa ay la kulmeen intii ay joogeen dalka Liibiya laakiin waxa arintan fududeeyay soo laabashadooda xafiiska arrimaha qaxootiga xuquuqda caruurta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliyeed oo in badan joogay Liibiya ku dhibaataysnaa alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waddankayga oo jooga halkan maanta ka hadlaya waa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliyeed alxamdulillah rabbil caalamiin marka hore Ilaahay ma hadle maadaama Ilaahay ka soo badbaadiyay horta Liibiya dhibaatadeeda mid la soo koobi karayo maaha dhibaato maskax ahaan mid jir ahaan iyo mid lacag ahaan iyo mid jimsi dil ahaan inta uu yeelay waxa taala dhibaato aanan hore weligeed dunida aanan lahayn weligeed way ka jirtaa tan oo kale ayaan ku soo arag maanta waan aniga ka nool alxamdulillah rabbil caalamiin waxaa kamid ah matalan marka hore magafuuq qabsanaya jirdil baa lagu sameeyaa wax cunta lagu simaayo tahriibkiina dhibaatooyin waa kala soo kulmay Liibiya ayaan tagay Liibiya intaan gelin ka hor waxaan maray Itoobiya gaari ayaan gula rogmaday markaan saxaraali galay maxaa la dhahay Itoobiya kadib 8 habeen ayaan lugeynayay Itoobiya gudaheeda Suudaan kadib Suudaan ayaan sidoo ku galay Liibiya markaan bilyan joogay lacagteeda la soo diray 7 bilood ayaan joogay meeshii saxaraha oo ku bixiyay 5,500 kadib markii dambe waxaa la geeyay meel kale oo laga qaado Shuweef la dhaho meeshii Shuweef waxa ku bixiyay 2,600 magacayga ustaxan waa Abtoow Xasan walahi Liibiya dhibaatooyinka yaala lama soo koobi karayo waa dhibaatooyin aad iyo aad u ballaaran iyo nooc walba isku jira dhibaatooyinkaas nooc walba leh maxaa kamid ah ina si xun lagu gumaysto in lagu gumaysto waxa kamid ah in lagu dhalaaliyo ka xogadiga dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka tanaasalaan taariikhda ay siyaabo kale oo ka fudud oo Liibiya loo geli karo Yurub loo geli karo jirta iyagoo si kawad ku geli kara inay noo qurin lacag ayna hadana ku gaari karin heerkoodii ama ku geelin halkay doonayeen inay ku bixiyaan ayaan aan uga diiday marka koowaad aadna waxaan ku codsanayaa dhammaanba maamulka dawladda inay wax noo qabtaan laga soo bilaabo sanadkii 2017 ilaa hadda dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay dalka ku soo celiso Soomaali badan oo ku xirnaa xabsiyada ku yaala wadamada Itoobiya, India, Seychelles, Liibiya iyo meelo kale. Muuse Usmaan Abtoow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.